barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad Coach Maxamed Ibn Umar. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني كبعية يعشر عنوان كيسو يهي سرع قاد عبر كاغا مكسو مرتي إن أرين آد إسلاهيد ما قبان كرتيد أو أود ومهيسيد آد قبطي إسلامر كان آد أودي مدى على إن حلية قار وحيابا آد قبطو مكوسو روبا بدن يهين هلكا إنتا كالي أين يسيدا أهين أو معجزة ماذا سمينين عبر كاغا آيات سرع قادي حدود بينات كان نفتا كوتا دي أودها الله كسي آياتنا بربوريسي taa ayaana kuu suuro gelisay inaad ka guul gaarto kana guul keento arrimo badan oo aadan filanaynin inaad weligaa ka guul keeni karto. mararka qaar inagoo is ogeyn ayaan cabiradeena sare u qaadnaa oo guulo waaweyn soo hoynaa. marar badan oo kalena waxaan u dhignaa hoos taasoo kalifta inaan xuduud beenaadka nafteenu nagu teeday aan tallaabi weyno. waxaa jira nin kalluumaysta ah oo saaxiibadii kalluumaystayaasha la ahna xasdaan. maalmaha ka mid ah ayay aad uga xanaaqeen kadib markay arkeen asagoo kalluunka kuwiisa waaweyn ee uu badda ka soo saaray dib ugu celinaya kan yaryarna soo qaadanaya. markay weydiiyeen oo ay dhaheen war maxaad sidaa u yeelaysaa ayuu ugu jawaabay ma haysto weel aan ku karsado kan yaryar kaliya buuna weelkaygu kariyaa. dad badan oo inaga mid ah ayaa sida kalluumaystaha oo kale ah oo maalin kasta ka taga waxyaabo badan oo faa'iido u ah iyaga oo ku andacoonaya in weelkoodu yar yahay ama awoodoodu intaas ka yar tahay. ismase oga ee xuduudda ay naftiisa u samaysay ayuu ku xaniban yahay ruuxa isaga ah taasoo jiisaysay awoodihiisa daxsoon. qof kastaa wuxuu leeyahay cabirkiisa u gaarka ah oo xadidaya heerka guushiisa iyo guuldaradiisa. sidoo kale waxa uu ogol yahay iyo waxa uu diidayo, waxa uu jecel yahay iyo waxa uu neceb yahay, hooseyntiisa iyo sareyntiisa intaba. waxaad arkaysaa dadka qaar inay ku leeyihiin lagama yaabo arrin aan ballan qaaday inaan ka baxo, lagama yaabo inaan qof aan la ballamay ka daaho, igama suurowdo inaan kala afleeyo oo laba hadal oo iska hor imaanaya hal mar aan ku wada hadlo. soomaaliduna waxay tidhaahdaa ilaahow haa iyo maya hal mar ha naga wada yeersiin. ama waxaad maqlaysaa dadka qaar ayagoo leh ima qanciyo wax ka hooseeya kaalinta koowaad ama wax ka yar jus quraan maalinkii ima deeqo iyo hadallada la midka ah. dadka sidaa u hadlaya waxaad ogaataa in cabirkoodu sarreeyo islamarkaana meelaha hoose aanay marnaba ka raali noqonayn. sare u qaad cabirkaaga haddaad doonayso inaad guulo waaweyn nolosha ka soo hoydo. dib u eeg cabiradaada oo dhan adoo u fiirsanaya dhan walba oo noloshaada ka mid a. dhanka xiriirka Allah kaala dhaxeeya, dhanka la dhaqanka dadka ku xiga sida hooyo macaan iyo aab macaane, iyo weliba lamaanahaaga iyo caruurtaada iyo weliba qaraabada oo dhan. sidoo kale hubi xiriirka kaala dhaxeeya dadka kale ee asxaab iyo macaarif aad tihiin iyo dad ka aadan aqoon ee kaleba. sare u qaad cabirkaaga oo hubi in cabirkaagu yahay mid sare u qaadan in kun filan dadka hankoodu sarreeyo ee guusha higsanaya. marka aan ka tagayno arrimo waaweyn oo aan ku hanweynayn islamarkaana rabnay inaan xaqiijino annagoo ku marmarsiyoonayna in arrintaasu tankeenna ka weyn tahay ma aanan ka bixi karin ama aynaan xoog u haynin, markaa sidaa yeerayno waa innaga oo tuurayna kalluunka kiisa waaweyn oo ku marmarsiyoonayna in weelkeennu karin oo uu ka yaryahay. allah wuxuuna siiyey awoodo aad u baaxad weyn iyo kaabayaal noo suuro gelin kara arrimaha aan hiigsanayno oo dhan. waa haddaan cabirkeenna sare u qaadno islamarkaana fahanno teedka nafteena noo dhigtay iyo qaabkan uga tallaabi lahayn. in badan dadku waxay ka boodaan in arrinku intiisa badan uusan ku xirnayn awood iyo tabar ee uu salka ku hayo doonis dhaba ee laga helo qofka. sare u qaadka cabirkaaga iyo bedelidda qaab xun u fakarka kula haray kuuna diiday horumarka
waxa uu kuu suuragelinayaa in awoodaha xooggan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey aad aragto islamarkaana yeelato go-aan geesinimo leh oo aad ku dhaqaaqdo waxa naftaada horumarinaya islamarkaana aad hiigsanayso. can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa sa'altum allaha fas'aluuh alfirdows fa inahaa wasatu ljannati wa aclaaha wa fawqahaa carshu araxmaan wa minhaa tafjiiru anhaari aljanna. abi hurayra allaha ka raali noqdee waxa uu rasuulkeenna kasoo tabiyey in rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi haddii aad alle weydiisanaysaan janno weydiista midda la yidhaahdo firdows, ayadaa ku taalla jannada bartamaheeda iyo xagga jannada ugu sarreeysaba, waxaana ka sarreeya carshiga allaah. ayadaas ayaana laga soo dilaaciyaa webiyada jannada ee kala duwan. xadiidka wuxuuna tusayaa in loo baahan yahay hansarayn oo xataa aakhiro iyo jannada raadinteeda waxaa lagaaga baahan yahay inaad cabirkaaga sare u qaaddo oo aadan janno uun keliya rabbina aadan weydiisan janno uune midda u sarraysa aad weydiisato. ramadaan waa fursad isbedel, waa fursad aad sare u qaadi karto cabirkaaga, waa fursad aad ku bedeli karto dhaqan kastoo xun oo aad lahayd oo kula haray mid wanaagsan. sare u qaad cabirkaaga inta ramadaan lagu jiro iyo 10kiisa dambe ee fadliga badan. iskuna day inaysan xamaasad iyo laablakac kaa noqon oo aad joogtayso isbeddelka aad ka dhaxasho ramadaan markii laga baxo ramadaan. taana waxay kuu suuroobi kartaa inaad qorshe u samayso kaas oo suuro gelin kara sii joogtoobidda dhaqanka wanaagsan ee aad kasbatay inta ramadaanka lagu jiray. cabirkaaga dhanka hansarida iyo horumarinta naftaada sare u qaad. cabirkaaga dhanka wanaagga samayntiisa iyo faafintiisa sare u qaad. cabirkaaga sare u qaad haddaad salaada dukan jirtay jamaaca la-aan oo jamaacada la soo tuko. cabirkaaga sare u qaad haddaad qur-aan ka yar jus akhrin jirtay oo akhri qur-aan badan. cabirkaaga sare u qaad haddii salaadaha sunnada aadan dukan jirin oo badi salaadaha sunnada ah. cabirkaaga sare u qaad haddaad dadka caayi jirtay oo afkaaga wanaag waxaan ahayn yaa laga maqal. cabirkaaga sare u qaad haddaadan xiriirin jirin qaraabada oo xiriiri qaraabadaada af iyo gacanba. cabirkaaga sare u qaad oo naftaada sarraysii aad sarrayside allah agtiis iyo dadka dhexdoodaba e. layli waxaad soo qaadataa waraaqad iyo qalin. waxaad qortaa dhinacyada noloshaada u baahan in sare loo qaado. kadib qorshe u samee aad sare uga qaadayso, kuna dhaqaaq oo ha sugin qofaan adiga ahayn inuu u dhaqaaqo. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.